Assalaamu calaykum saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan magacaygu waa Cabdirasaaq Abuukar. Fiidiyogan maanta waxaan uga hadli doonaa 10 waxyaabood oo ka mid ah farsamooyinka muhiimka ah oo loo isticmaalo kombiyuutarada Windows 10-ka oo uu qof walba muhiim ay u tahay inuu ogaado. Haddaba muuqaalkan maanta wuxuu ka mid yahay muuqaalo taxane ah oo ku saabsan cilmiga IT-ga kaasoo kaa caawin doona dhanka tiknoolajiyadda. Haddii aad ku cusub tahay channelkayga, fadlan subscribe leh si aad ula socoto muuqaalada dambe ee ku saabsan cilmiga IT-ga iyo cilmiga Forex-ka. Ku soo dhawow Katib FX. Qodobka koowaad, sida caadiga ah shaashada kombiyuutarka muuqaalkeeda wuxuu u samaysan yahay habka loo yaqaano light mode-ka, kaasoo iftiin zaa'id ah uu la socdo oo uu dhaawac u geysan karo aragtidaada. Haddaba, si aad u beddesho iftiinka zaa'idka ah, Windows-ka wuxuu leeyahay hab loo yaqaan dark mode oo shaashada madow kaaga dhigayo iftiinkan zaa'idka ah kaa yareynaya. Si aad u beddesho, waxaad imaanaysaa halka hoose ee Windows-ga, waxaad leedahay setting, waxaad leedahay personalization, waxaad imaanaysaa colors, halkan uu ku qoran yahay choose your color ayaad klik siinaysaa, waxaad dooranaysaa dark mode. Hadda wuxuu isku beddelay shaashadaada oo dhan habkan madowga ah. Qodobka labaad, calculator-ka waxaan kaliya u isticmaalnaa habkan xisaabaadka caadiga ah oo aan kaliya u isticmaalno inaan wax iskugu darno ama wax iskugu dhufano. Laakiin wuxuu leeyahay faa'iidooyin intaas ka sii dheer. Haddaa halkan calculator-ka standardka aad klik siiso, wuxuu calculator kuu qaban karaa intaan oo arrimood oo laga faa'iideysan kara oo mid walba uu u leeyahay qaab xisaabeed u gaar ah oo loogu talagalay in lagu xisaabiyo. Tusaale, maadaama Forex aan ka shaqeyno, haddaad u baahato kale dhanka currency-ga kale in lacagaha sida iskugu dhigmaan iyo sida loo kala bedelo iyo heerka ay yihiin aad ogaato kale, halkan waxaa kugu qoran United States, halkan waxaa kugu qoran Japanese yen. Haddaad u baahato halkii dollar oo Mareykanka ah meeqa Japanese ayuu u dhigmaa, inta ayaad ku ogaan kartaa. oo tusaale ahaan waxaad leedahay halkii dollar wuxuu u dhigmaa 106.28 oo yen ah. Inta waxaa arkaysaa halkii dollar wuxuu u dhigmaa 106.28 oo yen ah. Haddaad rabtid inaad yenka ka beddeshid oo lacag kale u beddeshid, intaa klik siinaysaa, lacagta u baahan tahay ayaad klik siinaysaa. Tusaale, waxaan leeyahay Europe oo kale, waxaan leeyahay intaan xisaabtan baabi'inaya halkii dollar wuxuu u dhigmaa 0.85 oo lacagta Euro-ga ah. Qodobka saddexaad, time difference-ga waxaa loola jeedaa, tusaale haddii qof waddan kale uu joogo, qaarad kale uu joogo, aad u baahan tahay inaad ogaatid waddanka uu joogo saacadiisa meesha ay marayso iyo kala duwanaanshaha meesha adiga aad taagan tahay iyo waddan kale, waxaad samaynaysaa halkan hoose oo sirjiga ayaa waxaa ku qoraysaa alarm and clock. Kadib waxaa kuu soo baxayso alarmiga oo sidaan ah. Kadib waxaad dooranaysaa adiga halka ay ku qoran tahay clock markaad dooratid, waxaad arkaysaa Muqdisho halkan hadda anaga aan joogno taariikhda maanta ah iyo maalinta local time-keena wuxuu marayaa 7:52. Haddaad u baahan tahay marka inaad ogaatid qof joogo waddanka Japan oo kale meeqa saac oo Japan anaga naga horeeyayo kale inaad ogaatid aad rabtaa, waxaa leedahay halkan waxaa leedahay click oo plus aad kusoo daraysaa, inta waxaa ku qoraysaa Tokyo oo kale Japan, waa kana click aad leedahay, waa kana Japan meesha ay ku taalo waa halkan. Haddaan weyneeyo, Japan meesha ay ku taalo waa halkan, waxay naga horeysaa 6 saacadood oo Japan hadda waxay u tahay 7 saac haweennimo ama 8 saac oo dhiman 7 daqiiqo. Waddan walbo meesha uu yahay iyo saacadda uu yahay iyo meesha ay tahay saasaa ku ogaanaysaa. Haddaa rabto mid ka mid ah inaad tirtid oo kale, waxaa leedahay calaamadan checklistiga klik siinaysaa, midkaa rabtida klik siinaysaa, kadibna waa iska tiraysaa. Sidaas ayaad u tiraysaa. Qodobka afaraad, Windows-ga wuxuu leeyahay hab casri ah oo fudud oo emoji-ga aad ugu diri karto iyo calaamado kale oo aad u muhiim ah. Si aad u isticmaasho, waxaad riixaysaa Windows key plus calaamadda dhibicda ah. Sida halkan kaaga soo muuqatay,
waxaad u jeedaa si fudud waxaad ku isticmaali kartaa emojiga, waxaad riixi kartaa calaamadda rabtid. sidoo kale wuxuu halkan ku leeyahay symbols iyo calaamado u gaar ah. dhammaan calaamadahan oo dhan mid walba u baahatid si fudud ayaad ku isticmaali kartaa. qodobka shanaad, windowga sida update loogu sameeyo. windowgaaga si aad u ogaatid inuu up to date yahay ama aad uga hortagtid in ay cilado dhanka farsamo ay kugu yimaadaan, waxaa mar walba u baahan tahay in kombiyuutarkaaga uu update u yahay. si aad u update garaysid, waxaad imaanaysaa halkan hoose, waxaad riixaysaa settings, waxaad imaanaysaa update and security meesha ay ku qoran tahay. sidaad u jeedid, haddii uu windowga u baahan yahay update, wuxuu ku tusinayaa calaamadan exclamation marka ama in uu update u baahan yahay ayuu inta kugu sheegayaa updates available. si sahlan download ku dheh, kadibna markii uu downloadingka uu dhammeeyo waxa kuu soo bixi doonto install. dhowr jeer ayuu isku samayn doonaa restart iyo maaragtay markuu dhammeeyo update-ka. si tartiib ah u raac stepska uu asaga ugu baahan yahay. qodobka lixaad, ransomware protection. sidaan ogsoonnahay caalamka maanta waxaa ka jiro dagaal dhanka internetka ah. muddo aan saas usii fogeen adduunkao dhan waxaa qabsaday hackers oo sameeyey hackar nooca loo yaqaano ransomware, kaasoo kombiyuutarada dadkao dhan ka xanibayay oo shaashad ay usoo fuulaysay in uu lacag madax furasho ah uu bixiyo si uu dib ugu isticmaalo dukumiintiyadiisa iyo xogtiisa muhiimka ahayd. windowga wuxuu ku soo daray barnaamij kaa difaacaya in ay hackerska mar kale sidaasoo kale ay sameeyaan oo kombiyuutarkaagii ay xirtaan shaashadiisa ama faylal gaar ku ah si ay madax furasho ay kaaga qaataan. si aad u isticmaasho marka protectionkaas ama difaacaas loo yaqaano ransomware protectionka, waxaad imaanaysaa window setting, kadib waxaa imaanaysaa window security, waxaad imaanaysaa halkan loo yaqaano window security, kadib waxaa imaanaysaa virus and threat protection, kadib waxaa imaanaysaa halka loo yaqaano manage ransomware protection ayaa imaanaysaa. kadibna off hadduu kuu yahay on ayaad ka dhiganaysaa. marka on ka dhigato, halkan waxaa kaaga muuqan doona, waxaa kuu soo bixi doona folderada adiga ku ah protectedka ku ah. halkan ayaa waxaa leedahay protected folderska, click si aad u ogaatid folderada adiga lagu xifdiyey. inta muxuu ku leeyahay Windows system folders are protected by default. You can also add additional protected folder. kuwan oo windowga oo drive C-ga ah asaga ayaa mid walba C-ga la socdo, mujeedaa C-ga la socdo folderada hadda musiga, favorite-ka, videoska, pictureska, documentska, waxaan oo dhan waa midka by default oo C-ga ah. windowga asiga automatic asiga ah protected uu ku sameynayo. laakiin adiga midka rabtid halkan ayaa plus leedahay. D-go kale hadda C-ga waa asaga midku asaga oo protected ku sameeyay. adiga marka D maadaama online ay isticmaalaysid, D-gaagii xogta kuugu jirta ayaad imaanaysaa. waxaan waa xogta adiga kuugu gaarka ah oo windowga uusan difaacaynin. waxaad samaynaysaa marka midka adiga kuugu muhiimsan, click C, kadibna select dheh, halkan ayuu kuugu soo darayaa. waa kana hadda my projects, yacni waxaa ii difaacayo windowga oo D-ga ah. qodobka toddobaad, disable startup apps. sida caadiga ah marar badan waxaa dhacdo in marka kombiyuutarka aad shidid in applicationo kale ay kula soo kacaan, sida WinRAR-ka, applicationo badan oo mar walba markaa kombiyuutarka shidaysid ayagana kula soo kackacayo oo inaad cancel dhahdo aad xirto aad ku qasbanaanaysid. si applicationadaas oo kombiyuutarkaaga la soo kacayo oo aadan u baahnayn aad isaga xirtid, waxaa leedahay right click taskbarka ku dheh, kadib task manager aad, kadib task managerka markuu kuu soo baxo, kadib waxaa imaanaysaa startup halkay ku qoran tahay, kadib halkan ay ku qoran yihiin nooca impactigooda sidii ay u kala muhiimsan yihiin iyo in ay shaqaynooyin iyo inaysan shaqaynoonin. hadda Adobe oo kale aniga disable uu yahay, internet download manager oo kale disable uu yahay, ma ila soo kacayo. waxyaabaha ila soo kacayaan waa kanoo kale ka mid ah, yani enable ayuu ku yahay. kanoo kale waxaa leedahay disable aa leedahay. midkaadan u baahnayn Zapier kale ayaa kula soo kacayo. midka u baahan tahay right click aa leedahay enable, ama haddii kale click aa siinaysaa halkan hoose ayaa enable ka leedahay. qodobka sideedaad, habka loo qaado screenshot-ka. windowgu wuxuu leeyahay habab badan oo screenshot looga qaadi karo.
waxaan ku tusinayaa 3 hab oo very important ah oo aad uga qaadi kartid screenshot-ka. habka koowaad waa inaad isticmaashid toolka loo yaqaano snipping tool. si aad u isticmaashid snipping toolka waxaad imaanaysaa halkan hoose waxaad ku qoraysaa snipping tool. snipping toolka ayaa click siinaysaa. haddaa rectangle-ka aad dooratid view waa leedahay, kadibna intaad rabtid calaamadsanaysaa, kadibna intii ayuu sawirkaaga qaadayaa. haddaa rabtid editing aad ku samayn kartaa oo waxbaa ku qorqori kartaa, kadibna waxaad leedahay save, kadibna meesha aad rabtid ayuu kugu save garaynayaa. qodobkaas waa qodobka koowaad. qodobka labaad oo aad ku samayn kartid screenshot-ka waa si fudud inaad dhahdid Windows key plus print screen. wuxuu ku geynayaa halka lagu save gareeyo computerka sawirada. waxaa imaanaysaa my pictures, waxaa imaanaysaa screenshot oo halkan ayuu kugu jiraa sawiradaada screenshot-ka. habka saddexaad waxaad samaynaysaa waxaad taabanaysaa window key plus shift plus s. waxaa kuu soo baxayo shaashada oo mugdi ah. qayb ka mid ah haddii aad u baahan tahay sidaan ayaad select u leedahay. intii aad u baahan tahay ayuu kuu save gareeyay, kadibna clipboardku ayuu kugu save gareeyay, kadibna click ayaa leedahay, sawir kuu soo bixi doona. sidaan ayuu kugu soo saarayaa intii adiga aad save gareysatay. si aad u save gareysato waxaad u baahan tahay ku qorqoro oo wixii adiga u baahan tahay ku sameey, kadibna halkan save u dheh, kadibna bar alaala barta aad ku save gareyso. qodobka sagaalaad sida loo sameeyo ama la isugu bedelo desktops fara badan. waxaa loola jeedaa haddii ay shaqadaadu ay aad u badan tahay oo desktopkii uu kaa buuxsamo, hoolal badan ay ku yaaliin oo dhowr window inta ay kaaga furan yihiin oo sidaan oo kale hoolo ay ku kala socdaan, yacni shaashada si uun adiga aadan ugu maarmaynin. si aad window cusub aad u samayso waxaad leedahay window plus control plus d. wuxuu ku sameynayaa desktop cusub oo desktopkii hore uu ka leexina desktop cusub ku sameeyna. desktopkan oo adiga hadda aad isticmaalaysid sidaad rabtida waxaa u isticmaali kartaa programmadii kale aad rabtida samaysan kartaa. kaagii hore hadda ina u laabatid aad rabtidna waxaad taabanaysaa control plus window plus left arrow key. sidii uu kii kugu diyaarsan yahay muusan kaa xirmin. haddii aad u baahan tahay windowgii kale haddana control plus window plus right arrow key oo faylalkaagii iyo dokumentiyadaadii iyo waxaagii kana windowgaana si gooniyaad ula macaamilaysaa. windowgii kaleetan inaad u noqoto daarabto waxaa leedahay control plus window key plus left arrow key. haddaad rabtid inaad mid iska xirtay windowyada midkaa rabtidaad aadaysaa, kadibna waxaa riixaysaa control plus window key plus f4. qodobka tobanaad restore pages. qodobkan runtii waa qodob aad u muhiim ah. haddii adigoo isticmaalayo Chrome page-ka oo si lama filaan ah ay gacantaada ay ugu dhacdo calaamadda close-ka oo page-ka dhan ee hal mar ay kaa baxaan, si aad u soo celisid pageskii kaa xirmay waxaad samaynaysaa imaaw Chrome-ka oo mar kale kici, kadibna riix control shift t. dhammaan pageskaagii sidoodii ayagoo ah ayay dib kugu furmayaan. haddaba haddii muuqaalkan uu ku caawiyey fadlan sii share garee si ay arday kale uga sii faa'iidaystaan. haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe dheh si aad ula socoto muuqaalada xiga. sidoo kale haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo su'aalo ku saabsan cilmiga IT-ga iyo cilmiga forex-ka waxaad iigu reebi kartaa qaybta hoose ee commentiga. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.